السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وين سلامية وقوليد هداد قو عصبتين فضلا سبسكرايب كايلا وين أصحابتنا لسي وداق وحي كومنتينا نوهر فرينت إن شاء الله رأتي حالة طلوحة دعارين لياب له كدي مركي عبد الحكيم أما لغو مقعاوة مدحي علول ولكل مايد عدا لياب له كدي مركي فلطوسة أما قعنقاد لو جيستي ولكن عبد الحكيم سوغو شوغم قاعدة نيروبي هدابا أرين تاسينو أوغانو وحي دعاي runtii waxaa si layfa uga sheegaya arrinkaas inuu isagu runtii muddo ay ka dhaxaysay xifaaltan xagga afka oo gacan ahayn laakiin Charles lagu deedeeyay Cabdixakiin in mar gacan loo qaad doono runtii Cabdixakiin si la wada ognahay uu yahay qof dad badan soo caayay qabiilo badan qabiil kasta ahaade laakiin runtii mar Charles lagu raadinay in gacan loo qaado hadda waxaan daawan doonaa video yar oo TikTok ka soo qaaday داير على سو أو سيل لايف وشيء يوحي داعي حالة طالع فهذا بقى إنه وضع إجنا إن شاء الله وحي داعي دونا إياه وحكي شكاني سوي توا. وروح على ذي يا ورق أنت تجي بالعيا على نيروبي نيجي ملح يعرضها الأوبيلين بوتدي سي وين داوسيات بوتدي سي ملح يعرض ساو جرا عند داوسي سو يبوتي مركو روح الشيء يا ورك ساي مركو هري ملح يعرض أو هجمات صادرة الشعب كم وما هي على دقيقة واحد ونعي ماشى. يرشا. نيجا بالفيريا. أنا صارت سنة يا مسؤول يا هنا صارت مسؤول هراني على يا الله يتصوّر هنا هذا روح تصيّر من لا دراه. لا دراه. هنا لا دراه تصيّر. هاي. يوصي كذا. هاي والله ناري يا يوغل يا لا ناري بس هاي يا يوغل محادة ماشان فيريا دوغدوغدي والله يا دوغدوغدي محاحي ها يا قفكان كوبدا لو عياريو يا قفكان كوبدا لو عياريو ninkan waa kee ninkaas waa kee la qaatay ninkaas waa kee sida wada arkaysaan waa Cabdixakiin oo dad gacmeynaya ama gacan loo tagay runtii isagoo oo ku fadhiyo wheelchairkiisa ama gaarigiisa gaar curyaanka ahaa runtii arintani arin aad iyo aad u naxdin badan bay noqotay qof curyaana in la dilo laakiin se ay arintani arin ay tahay personal ma rabo inaan dhex galo laakiin arintan oo ka dhaxaysay daahir iyo walaalkii Cabdixakiin runtii Cabdixakiin video yaran ka arkay oo kale soo la wareysanayo inuu caafimaad qabo aan wax dhibaato badan loo gaarsiin runtii laakiin Cabdixakiin uu sameeyay dhacdooyin ama xadgudubyo aad u badan kaasoo ay ka mid tahay inuu gabdho badan oo Soomaaliyeed caayay qabiilo badan caayay mar raba inaan ka sheego laakiin runtii tani waxay noqon doontaa mid cibro ku noqon doonta oo yani mar dambe insha Allah aanu sameyn doono wax kale daahirna uu yahay runtii qof aad iyo aad u active xag social media kaasoo qofkii iska hor yimaada runtii badan dad u adeegsado isagoo halka fadhiya ayuu dad u adeegsan Cabdixakiin Nairobi jooga tabeetana halka runtii wixii yani daahir halka arintiisa ku muujoojin wuxuu rabaa inuu qof kale oo next yiraahdo ama qof kale oo maalmahan ay social media ama qayb TikTok iska caay jireen in isaguna uu dhaaftay marka qofkaas waayo qofkan isaga ay noo sheegi doonaan marka bal ay wada dhageysano qofka ku daawada rag baa power ka rag baa ilaahis meesha rag baa maamusha maaha waxa ka sheekeynaysa idoo dhuqas maaha
laakiin aniga mid baa jirta aanan ka gagambarin mid baan ballan qaadaya aniga waxaan ballan qaadayaa yaxbul oo inta la qabto saas daamanka labada daama sida cunug yar looga garaaco inta looga soo baxay gus intaa leeg tuba ah afka kaada looga shubaa dhahaa hadda anagu mogtahay nin hala wasama dhihi karna mogta waa ceebe nin hala fuulo mogta waxaas waa dembi weyn mogta anagu mogtahay qabrigaan leenahay laakiin waxaan rabaa kaliya cabuya kaada dhas kaada la xabsina waad arkaysaa qofka labaad u dhaarnay waa yaxbul oo wiil sakariye la yidhaahdo oo isna ariga ay Nairobi jooga kaasoo xifaadka wada dhexeeya ali wasame ku caay haddaanan si waayo ibnu zina mar dambe noloshayda dambe ilaahu muu galo u baxsado ilaahu muu saambii ka soo leexdo ilaahu muu cirka galo ya wax allaala yurub ha yimaad meeshuu raba ha aado yaxbul waxa kale noonana afdhul bahantaa saala cali anigu sugan aniga mas wallaahi oo billaahi oo tallaahi yaa ku dhah saala cali oo qabri ku jirto afka uu ku aayay ya anigu way caay karaa qof noolana qof kale wuu caay karaa laakiin gabadhii qaranka saada cali warsame afka uu ku aayay kaadiya loo shubaa kaadi كل لغة لغ عليه ولا قصينا كل لغة هذا فيديو بس كيني واي ولا جاي على إنا ميل جريوه لكن واحد سمعي كرا أصلا أفكر ساعة حتى قريبا صار وكلا هاي ويكون تعطيك هذا أنت بالك الله قريب شو ولا قايلة بس سيا لا runtii waa arkaysaan digniin aad iyo aad u culus buu daahir u gudbiyey sakariye ama yaxbul waxaanu wacad ku maray in uu soo duubi doono isagoo la garaacayo kadibna kaada afka laga shubi doono intaa kumuu sii istaajin daahir digniintii video kale ayuu sidoo kale kaga hadlay arrintaa bale video boqol oo qof soo idaawamayso inay siiyo indhihii oo kiyaalaha lagu qarinayay yaxbul labadii indhood inaa idin tusiyo kuma caayayo dhibka ilaahay baa u keenay laakiin anigu kiyaalaha ka qaadaya ilaahay anaa ka dhihaya ilaahayo anaa ka qaada labada okiyaalood anaa soo fadhiisanaa life anaa u sheegayo dhahaya ilaahayo kan langaabka kan igu hoos nool aniga weeye ninkii muraayaha ka siibay ilaahay nagu cadaaba mana ama noo caf dembi bay noqonaysaa meel la cadaabaya أنا كسارة يحبل هذا مركاسة وريب أنت لا يصاب قال عليه هاي تايم سفيدو إلى أيو أريو ويجي وينهم بلقادة نيجي كبحي مراعيها video mar bayna kusii dhaaraado saad arkaysay ninkan odayga ay daahir hadda ka hor wuxuu geystay arrimo aad iyo aad la yaab leh kadib markii ay isku dhaceen Sharma Boy runtii sheekadu dheer weey Sharma Boy kadibna akoonkiisu kala wareegay kadibna uu dib u soo celiyay haddana mar kale ay isku dhici doonaan Cabdixakiin ama madaxii calool haddana Cabdixakiin saa ku sameeyay haddana iminkan uu sii dhaarnayo Sakariye Maaji ama yaxbul runtii ninkan odayga waxyaalaha social media xoog buu ku haystaa waa la odhan karaa maxaa yeelay qofku rabo u dhaartaa akoonku rabo loo wareegaa waxaasoo dhanna waxaa ka caawinaya waa dad isaga la shaqeeya runtii haddaad ku jirto TikTok ama social media runtii waxa ka socda waad ka warqabtaa laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo aanad ogeyn oo isagoo muxuu ahaa saacadad badan ay isku dhaceen laakiin oo dadkii inta ugu badan uu ka guuleystay sababta ugu guuleystayna runtii waxa weeyaan awood uu isticmaalayo dadka awood uu isticmaal marka kula yaani dad buu adeegsanay dadka kadibna dadkaas ayaa siyaabo kale oo ma garanay si qorsheysan oo kale loogu yaani inuu ku shirqoolaan ama inuu ku dilaan bal videogii madaxii calool xalay wixii gaaray balayno isagoo caadi yara daawano runtii kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdixakiin
video yaro laga soo duubay isagoo si toos loo garaacayo marka waxaan leeyahay asxaabay runtii TikTok waxa ka socda filmaan iyo social media taasoo qabiilkii uu sii xumaaday waxaa laga baqayaa marka ugu dambeysay in la arki doono dad si live midi ama xabad isugu dhufanay qabiil dartii marka dhalinyaro qabyaalada iska dayno aad baan islaamay